marinbiyoodka Hormuz waa marin badeed aad u ciriiri ah oo isku xidha gacanka Carbeed ee Persian Gulf iyo badweynta Hindiya. Marinkan waxa uu dhaxeeyaa dawladaha Iiraan iyo Cumaan, waana mid ka mid ah meelaha ugu istiraatiijiyadda badan dunida. Haddaba marinkan muxuu muhiim ugu yahay dunida? Marinbiyoodka Hormuz waa wadada ugu weyn ee shidaalka dunida. Qiyaastii 20% ilaa 30% shidaalka dunida ayaa maalin kasta mara marinkan. Dalalka Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Kuwait, Qatar iyo Ciraaq ayaa halkaasi ku dhoofiya shidaalka ay soo saaraan. Dawladda Iiraan ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay xirtay marinka Hormuz oo muhiim u ah socodka shidaalka dunida kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerar xoogan ku qaadeen waddankeeda. Xilligaasi kadib maxaa ka dhacay dunida kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday xiritaanka marinka dunida ee shidaalka? Qiimaha shidaalka ayaa si degdeg ah u kacay, suuqyada dhaqaalaha ayaa gariiray. Dalal badan waxay ka baqayaan dhibaato dhaqaale oo caalami ah. waana dharbaaxa lixaad leh oo ku dhacday Mareykanka, Khaliijka iyo Israa'iil oo wada socda iyo dunida inteeda kale oo shidaalkii laga cabsi qabo in gabi ahaanba u yaraado. Kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday inay xirtay marinbiyoodka caalamiga ee Hormuz, waxaa gabi ahaanba istaagay maraakiibta ganacsiga, waxaana hoos u dhacay 70% gaadiidka badda. Haddii marinka Hormuz uu sii xirnaado, dagaalka bariga dhaxan uu sii socdo muddo bil ah, waxay saameyn aan la qiyaasi karin ay ku yeelan kartaa dunida, maadaama marinkan uu yahay halka ay maraan ku dhowaad 5 meelood meel shidaalka adduunka. Sidaas daraaddeed, xiritaanka wuxuu saameyn togan ku yeelan doonaa dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga caalamka. Dagaalka bariga dhexe ka qarxay iyo xiritaanka marinka Hormuz, 3 dal ayay dhibaatada ugu badan ka soo gaari doontaa haddii uu sii xirnaado marinka Hormuz. China ayaa ugu horeeya. Dawladda China ayaa ah waddanka ugu badan ee ku dhowaad kala bar shidaalkiisa uu ka yimaado Khaliijka, waxaana ku dhici doona khasaare xoogan maadaama warshadaha wax soo saarka China ay u baahan yihiin tamar joogto ah. Dawladda Hindiya ayaa ah waddanka labaad ee sida gaarka ugu tiirsan gaaska laga soo dhoofiyo dalalka Carabta ee dagaalka bariga dhexe uu saameynta xoogan ku yeeshay. In ka badan 60% shidaalka Hindiya waxa uu ka yimaadaa Khaliijka, waxaana uu badankii soo mara marinka Hormuz ee Iiraan xirtay. Haddii uu sii xirnaado marinkan, qiimaha shidaalka waddanka Hindiya ayaa kor u kici doona, warshadaha iyo gaadiidka ayaana dareemi doona sicir barar aad u xoogan. Dhaqaalaha waddanka Hindiya ayaa sidoo kale gabaabsi geli doona. Waddanka Japan ayaa ka mid ah dalalka sida aadka ugu tiirsan shidaalka iyo gaaska Khaliijka. In ka badan 80% shidaalka Japan waxa uu ka yimaadaa wadamada Khaliijka ee bariga dhexe, waxaana uu soo maraa marinbiyoodka Hormuz ee Iiraan ku dhawaaqday inay xirtay. Xiritaanka marinka Hormuz waxay faa'iido u noqon doontaa wadamo kale oo soo saara shidaalka oo haysta marino kale ay ku iibgeeyaan shidaalka ay haystaan, waxaana kow ka ah Ruushka oo ay cunaqabatayn xoogan saaran tahay Mareykanka iyo Norway. Wadamada Khaliijka oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Kuwait iyo sidoo kale Ciraaq oo lagu daray ayaana saameynta aadka u xoogan ay u geysanaysaa xayiraadda marinka Hormuz la saaray iyo sidoo kale dagaalka ka qarxay bariga dhexe.